بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وبرنامج كيني تحنها إنو أها كساب سرا ويدي ولماذا وحدا قرنين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برنامج كان وحيدين سوق بنقابسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية. برنامج كان أسئلوين كيسة وحد كسوها قايتين كرتان صندوق يدا كردقان مساجدك إيو إيميل كأي مؤسسة لهذا هي ihsanmedia@gmail.com. شو محمد نوحان لنا يكسو دو برنامج كان أذيق ومشكور أهم أجورا بإذن الله المولى تبارك وتعالى. حلقة نعاوة وحلقة أفراد. سؤال شوقه الرئيسنا هو سؤاشي كنتونات سائشني وحيلة هاي السلام عليكم وحان هاي هو الصوماليات. سؤاشي إذا وحيت هاي أوينك بدن كوت ديك باكي مادة سيدة عادة سيدة حيتك نفاسك يديك فرنك مركا وحويا سؤاشي ذو دعانك لدهو قصة البيضاء ويسد متشبية داهر مياه درك هدي وقارو جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد. دعانك لو يقان القصة البيضاء وحكي يمد أما كسو أروري أثر لقوري أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما ووصو صاري الإمام مالك في الموطأ بإسناد حسن. أثر كاسي وحليه هي عائشة رضي الله تعالى عنهما أي دمرك وحي أدري الشرين كرينير أو صوف كتشره oo markii uu dhiigu ka go'o intay xubinka taranka iyo meeshii dhiigu ka soo baxay geliyaan oo ay ka soo saaraan bay markaa u diri jireen Aisha ayagoo markaa weydiinaya suufka isaga ah calaamada ka muuqatay ma tilmaamaysaa inuu dhiigii go'ay mise ma go'in. su'aal ahaan bay macnaha u weydiinayeen Aisha radiyallahu ta'ala anha. markaas Aisha waxay ku tiri la ta'jaliin hatta tarayna al-qassata al-baydaa turiidu bidhalika at-tuhra min al-hayd. markaas waxay ku dhigi jirtay hadegdegina ilaa aad aragtaan qassada cad. waxay ula jeedaa kuitaanka caadada. أثر كاسة هرتا يقصدوا كتميت قصة البيضاء. علماء فسر كذا لو معنى بويكو فسران معنى وحيد هذا قصده وحل إلى هذا ودرير عد أو سيدا نورد وكلاء أو سيدا عجين وكلاء أو دمر كمركي عدد وكجو أو يكرر ما تكذب صودا توكسوا بحبين كترين تاسع وحل إلى هذا القصة البيضاء. waxayna tilmaamaysaa inay caadadii dhamaatay. culimada qaar waxay ku fasiraan ma ahee markii dhiigu go'o meeshu ingegto ayaa dumarku waxay sameyn jireen suuf ama karin calal ah ayay gelin jireen meesha markaasay soo bixi jirtay iyadoo nadiif ah oo waxba wadanin dhacaan yani midab boora leh ama mid yeelow leh iyadoo waxba wadanin bay soo bixi jirtay. القصة البيضاء waxa laga wadaa waa shayga la gelinayo xubinka ee soo baxay isagoo nadiif oo cad. sidaana culimada qaar baa ku fasiray macnaha hore loo badan yahay. طيب hadaynu macnaha garanay dhiiga ku itaankiisa dumarka inuu ka go'ay laba midba waa lagu gartaa. waa midda koobaad horta calaamada inay aragto dareerahaas cad oo dhiiga gadaashiisa soo baxay dumarka ma wada laha qaar buu ka yimaadaa qaarna kama yimaado. calaamada way ku tustaa inay caadadii go'day. calaamada labaad ee lagu gartana wax way al-jafaaf inay meeshu ingegto
oo dhiiggii ka imaanayay ay ka ingegto xataa haddaynan arkin calaamadii markaa way qabaysanaysaa waa daahir taa waa xagga qasal bayda iyo macnaheeda laf ahaanteedu waysada ma jabisaa haa leanna siday culimmadu isku waafaqsan yihiin shay kasta oo labada jid ka soo baxa xubinka taranka ama xagga dambe ka soo baxa waysada waa jabiyaa marka waysada way jabinaysaa ma nijaasa iyadana haa waa nijaaso maxaa yeelay meeshii ka soo baxday baa tilmaamaysa inay nijaasato jidhka waa laga dhaqayaa hadday gaadho maradana waa laga dhaqayaa hadday gaadho wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheenna konton iyo koobaad magaciigu waa canab ismaaciil su-aashaydu waa sheekh qof ku dhacay maxduuraadka xajka ee ku laasimay dhiigga ma laasimba inuu gowrac sameeyo wakhti go-an mise wakhtiga uu hela ayuu samayn karaa gowraca maxduuraadka ixraamku waxaa laga wadaa ruuxu markuu xarmado xajka ama cumrada xidho waxyaalo badan baa xaaraan ka noqonaya wax dumarka ku khaasa wax ragga ku khaasa wax ka dhaxeeya ruuxu isagoo xarman hadduu waxyaalihii loo diiday wax ka mida sameeyo dhiig baa ka laasima inaad xoolo qashaa laasimaysa xoolahaas su-aashu waxay ku saabsan tahay ma la dibdhigi karaa mise wakhtigaaba in la qalo waayo wakhti go-an miyay leeyihin maadaama ay tahay waajib sharciya jawaabtu waa sidan maadaama waajib sharciya ay tahay ruuxu waa inuu dedejiyo inta karaankiisa ah hadduu heli waayana ousan markaa awooddeeda lahaynna xilliga ugu horreeya uu awoodo waa inuu gowraco bimacnaa xilli go-an oo xadidan oo nas u sheegay ma jiro laakiin maadaama ay waajib taho fariido tahay ama laasim sharciya yahay ruuxu waa inuu dedejiyo waay kolba qadra istitaacati inta karaankiisa طبعا meesha lagu gowracayna de waa xaramka oo masaakiinta xaramka la siinay wallahu a'lam jazaak allahu khayran su'aasha konton iyo labaad magaciigu waa fartuun axmed sheekh khayr allah ku siiyo waxa ay soo korsatay eedaday la dhalatay aabahay kadib markii ay hooyaday dhimatay allah u naxariistee eedo waxaan ugu yeeraa hooyo marka wax dhib ah miyay leedahay diin ahaan wax dhib ma laha ixtiraam ahaan inaad ruuxaad qadarinayso ama eedada ama habaryarta inaad hooyo dhahdo ama adeerka oo kale inaad aabba tidhaahdo qur-aanka kariimka waa ku soo aroortay awowyada in aabba la yidhaahdo wakadalika adeerada in aabba la yidhaahdo qisadii ree aali ibraahim muxuu ahay nabiyullaahi ismaaciil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam oo adeerkood ah ilma muxuu ahay ilma isxaaq ayay haddana aabba lagu magacaabaya marka adeerka aabba haddaad tidhaahda ama eedada ama habaryarta hooyo tidhaahdo min baab alixtiraam iyo qadarinahaad ula jeedo laakiin hooyada xuquuqdeedii shareecada iyo axkaamtii hooyanimo aan la siinaynin laa ba'as wax dhiba ma leh wallahu aclam jazaak allahu khayran su-aasha konton iyo saddexaad magaciigu waa cabdinaasir sheekh allaha ku barakeeyo ilaahay dartiis ayaan ku jeclahay qofka su-aashu waa qofka xaaskiisa marka uu u galmoonayo biyaha bannaanka ku daadiya ama xaaskiisa daawo siiya si ayan u dhalin ama irbad ku dhufta ma lamid baa qofka ilmaha sida caadiga ah u dila ama marka uu abuurmo kadib soo tuura masaladaa mar kalena waan ka hadalno waa ka jawaabnay taqriiban ilmuhu intuusan uur gelin in uurgelidda ama inuu uurka galo laga ilaaliyo haddii markaa ayna ujeeddadu ahayn iyo waxa ruuxa ku xambaaraya risiqka carar iyo arsaaq xaggeen uga helaya laakiin ay jiraan asbaab kaloo kallifaysa wax dhiba male way bannaan tahay asalka lianno xadiidka jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma waa kii ahaa kunna naczil waalqur'aanu yanzil yani waxaan samayn jirnay casliga isagoo qur-aanku degayo casligu waxa weeyaan waa ninku markuu reerkiisa u galmoodo ama addoontiisoo kale biyuhu soo dhowaadaan inuu biyaha bannaanka ku daadiyo
xubinka intuu soo saaro uu bannaanka ku daadiyo taasaa casliga la yidhaahdo si ayna islaantu uur u qaadin marka qur'aankoo degaya ayaanu samayn jirnay buu leeyahay saxaabigu hadday xaaraan tahayna qur-aankaan noo diidi lahaa xadiidka nebiguna sal alla alay wasalam wuxuu yidhi maa calaykum anlaa tafcaluu inaydaan samaynin waxba idinka soo gaari maayaan wixii ilaahay qoray oo qadaray waa abuurmaya haddaad si kasta uga warwareegto marka asal ahaan waa iska bannaantahay waagaasi dee wasiilo kale ama qaab kale oo lagu samayn kara ma jirin oo biyaha bannaanka lagu daadiya aan ahayn laakiin hadda qaabab fara badan ayaa soo baxay oo lagu muxuu ahaay ilmaha ama biyuhu inay gudaha ku daataan lagaga hortegi karo ama islaantu inay uur qaadaba lagaga hortegi karo marka asal ahaan way iska bannaan tahay khaasatan haddii asbaab keenaysa ay jirto oo maalan yacni maamadii baa maalan ku xanuunsanaysa xaaskaa ku xanuunsanaysa carruurtan faraha badan maalan kala korintooda ayaa maalan lagu rafaadaya in la kala koriyo maalan asbaabo kalaa jiri karo ruuxa daafica ku bixin karaya laa ba'as wax dhiba male laakiin haddayna wax sababa uusan jirin oo keenaya ama xaajo keenaysa aysan jirin markaasi karaaha ku jirta sida culimmada maalikiyada iyo qaar ka mida tilmaamayaan waxaana laga faa'iidaysanayaa nabigeenna la weydiiyey sal alla alay wasalam xadiidka fii saxiixi muslim oo judaama binti wahb gabadha la yidhahdo warinayso nebiga markii la weydiiyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi waa xabaalnololin qarsoon buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam yacni ilmaha iyagoo nool bay aasi jireen jaahiliyadii islaamka ka hor marka tiyoo la qariyey waayo nebigu sal alla alay wasalam tiyoo xoogaa la yaro farsameeyey uu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam marka waxay tilmaamaysaa haddii aan xaajo keenaysa aynan jirin karaaha kama marna maxaa yeelay asalku waxa weeyaan in carruurta la badiyo asal waa in taranku bato waay haddii xaaja keenaysa ay jirtana way bannaanta laba goorobana ma gaadhayso ilmo la soo riday la mid maaha ilmo nooloo la dilayna la mid maaha taa waa jariimo iyo dembi weyn ilmo uur galayoo la soo riday oo ama nafta markii la geliyey ama ka horba taa waa dembi weyn la mid maaha way ka duwantaha macnaha wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha konton iyo afraad magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh aadan sheekh ilmo aan qur-aanka u dhammeeyey waalidkiisana igula heshiiyey marka aan qur-aanka u dhammeeyo inuu isiin doono lacag gaaraysa $500 kadibna waalidkii ilmaha uu la baxay isagoo aan isiin lacagtii uu ii ballan qaaday arrintaas xukunkeedu muxuu noqonayaa laba masalay ku xidhan tahay horta in laga hormariyo midda koowaad qur-aanka baridiisa wax ma lagu qaadan karaa hadday jawaabtu haa noqoto oo madhab culimmada qaar ka mida ay qabaan kadib waxaa imaanaysa macallinka iyo dadka uu carruurtooda qur-aanka baraya caqdiga iyo heshiiska ay galeen waa noocee in la tawsiifiyo ama la takyiifiyo bimacnaa macallinka iyo waalidka waxa dhex maray muxuu yahay iyadana caqdigaasi waxay ku sheegaan fuqahadu inuu yahay caqdu ijaara waa macnaha wax weeyaan waa shaqaalaysi yani ujuuro wey haddii marka ilmuhu uu macallinku wax ku barayo ujuuro ku barayo macallinku xaqiisa wuxuu leeyahay markuu sameeyo camalkii lagula heshiiyey haddii shardi ay ahayd xoolaha in lagugu siinayo markaad ilmaha intaasoo jus u dhammayso ama markaad u dhammaysood qur-aanka u kamisho markaasaad mudanaysaa xaqa sida dadka kale la shaqaalaystaba markay shaqadii dhammeeyaan ay xaqooda u mudanayaan haddii ilmaha aad qur-aankii u dhammaysay oo dankaaga ka soo baxday hawshii laguu dirsaday waalidku inuu ilmaha iskala tago xaqaagana dafiro ama ku siin waayaaye waa dulmi waxaana tilmaamaya xadiidkii nabigeenna sal alla alay wasalam marar horena aan sheegnay xadiisulqudsiga ahaa bukhaari baa soo saaray allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala alaaatun ana khasmuhum
yowma alqiyaama waman kuntu khasmahu khasamtuhu saddex ruux maalinta qiyaamada anigaa ku doodaya anaa haysta ciddii anigu aan qabsadana waan ka rayn oo marnaba guulaysan maayo saddexdaa waxaa ka mid ah rajulun ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yuufihi ajrahu nin dad shaqo u dirsaday shaqadii markay u dhammeeyeenna xaqoodii aan siinin saddexdaasuu ka mid yahay haddana kaga daranaya waa qur'aan oo waxa ilmaha laguu baray waa diin way sii culus tahay markaas marka waa in waalidku wuxuu macallinka kula heshiiyey waa inuu gudo macallinkuna wixii lagula heshiiyey waa inuu ka soo baxo markaasuu xaqiisu laazimaya uu yeelanayaa caqdiga iyo heshiiska iyo mucaamaladuna waa mucaamalo ijaaro waay axkaamtii ijaaradu lahaan jirtay ayay qaadanaysaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha konton iyo shanaad sheekh dadka qaar ayaa yidhaahda meydka waa in qur-aan loo akhriyaa gaar ahaan suuratu likhlaas waxayna dhahaan meydtada qur-aanka loo akhriyey way farxaan kuwa aan qur-aanka loo akhrinina way caroodaan arrintaas maxaa ka jira yaa soo wariyey inay cadhaysan yihiin iyo inay faraxsan yihiin waxaas wax jira maaha amwaadda iyo dadka qubuurta galay wixii ku saabsan inay farxeen iyo inay murgeen iyo xaalkooda in waxyi inoo soo tabiyo mooyaane si kale laguma ogaan karo waxyina kuma hayno qur-aan iyo sunno toona laguma hayo markii qur-aan loo akhriyana way farxaan markaan qur-aan loo akhriyeyna way cadhoodaan qur-aan iyo sunno laguma hayo warkaasi marka war raadle maaha mas'alada hal meel bay ka qabasho leedahay taasina waxay tahay dadka dhintay qur-aan ma loo akhrin karaa inta qur-aanka la akhriyo hawaabka iyo ajirka qur-aanka ma loo hadiyeyn karaa waa mas'ale ay salafkii isku khilaafsanaayeen ridwaanullahi calayhim culimmadii salafkaa ku kala aragti bedelaa oo qaar waxay qabaan in aan meydka qur-aanba loo akhrin karinba noocuu dooni ha noqdo mana gaadhayay leeyihin waxaana ka mid a imaam almaalik caleyh raxmat ullah imaamu maalik fi lmashhuuri canhu waxaa ka mid a imaamu shaafici caleyh raxmat ullah calayhim alraxma waalridwaan labadaa imaamba waxay leeyihiin meyd qur-aan ma gaadho waxay deliishanayaan aayadda qur-aanka wa an laysa lilinsaani ila maa saca insaanku ma laha wuxuu shaqaystay waxaan ahayn wixii deliil ka soo reebay meesheeda wa waxaa kaloo deliishanayaan xadiidkii fii saxiixi muslim ku yaallay idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ila min alaa ibnu aadamku markuu dhinto camalkiisu waa go'aya ilaa saddex mooyaane saddexdaasi waxay ahayn sadaqa jaariya aw cilmin yuntafac bihi aw waladun saalixun yadcuu lahu sadaqa uu ka tegey oo weli usii socota cilmi uu dadka baray oo la intifaacsanayo iyo ilmo wanaagsan oo usoo ducaynayo oo ka dambeeya saddexdaa waxaan ahayn waa go'ay buu xadiidku leeyahy almuhim masaladu cinda asalaf waa masale khilaafiya ah sidaas daraaddeed maadaama aynan nas khaasoo ku soo arooray lahayn waxaa fiican in looga wareego wixii nas ku soo arooray leh oo meydka inuu gaadhayo deliil cad loo hayo sida maalan sadaqadoo kale waa ijmaac waa la isla ogolyahay sadaqadu inay gaadhayso xadiidkuna waa tilmaamay sida maalan xajkaoo kale in laga soo xajiyo cumrada oo kale ducada iyo istikfaartoo kale kulli adilay leedahay meydka inay gaadhayso wixii marka deliil cadle in lagu gaabsadaa fiican ama masalada qur-aanku deliil cadna ma leh waana khilaafiya salafka dhexdooda wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha konton iyo lixaad sheekh naagteyda oo aan biilan jiray ayaa iga dhuumatay waxayna aaday yurub wiil ay ii dhashayna way wadatay marka muddo kadib ayay tidhi waa iska kaafasaqayaa waxaana guursanayaa nin kale marka diintu maxay ka qabtaa maxaadse igula talin lahayd waa dhaqan waayahan jira soomaalida dhexdeeda inay haweenku dhuuntaan oo iska cararaan ama xataa ehelkoodii inay ka shaqeeyaanba siday u carar lahayd ninkeeda uga carar lahayd yacani islaan dhan oo dhaqan oo nin lahoo carruur lahoo
nool oo baa inta tigidh loo soo diro ama hawl la isugu soo abaabulaa leeyahay ka soo carar waa dhaqan xumo aad u weyn aad u xun waa xadiidkii nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wacid adag baa ku soo arooray nin xaaskiisa ku dirta oo ka shaqeysa wacid aad u adag baa nabiga ka soo arooray salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ilaan guri baa duminaysa waa shaqadii shaytaanka waa shaytaanka qabta hawshaas inuu guryaha dhisan dumiyo oo reeraha kala diro intaasi marka arrin khatar ah wax laga shaqeeyana ma haweenaydu haddii ay ninkeeda ka cararto ama amarkiisii iidankiisii ogolaanshihiisa la'aantii iska tagto waa naashizad waa waa caasiyad hadday naashizad tahayna xaq ma leh xuquuq gogolla ma leh xuquuqdii biilka iyo masruufka iyo marashadana ma leh ilaa ay ninka daacadiisa ku soo noqoto marka iyadoo dembiile ah oo baxday oo carartay ilmihiisiina la carartay haddana xaq baan u helayaa inaan isfasaqo yaa xaggee laga ciyaaraa ciyaartaas warkaasi war jira ma aha fasaqo asbaab buu leeyahy asbaab keentaa jirta fasaqa sharciga fasaqu sidiisaba nas qur'aan iyo sunno cad kuma soo aroorin laakiin waa ijtihaadkii khulafaa uraashidiin waana mar laga maarmi waayey inay awoodi soo farageliso xadhiggan goyntiisa asbaab buuna leeyahay asbaabtiisa waxaa ka mida maalan labada ruux mid ka mida inay ceeb ku soo baxdo munafir ah oo dabciga bini aadamku uusan qaban karin ninku maalan inuu haweenaydiisa ama xaaskiisa biilan kari waayo sida fuqahada qaarkood baa qaba tabarba u waayaba ama ma ahe gogoshiiba uu tabar u waayo wahaakada labada isqaba mid ka mida inuu diinta ka baxo ridoobo walciyaadu billah asbaab bay leedahay fasaqa keena laakiin in yurub loo tahriibo oo badaha inta laga dhaco kadibna sababan yani sharcan mubarir baan u haystaa inaan isfasaqo warkaasi war jira maaha taa waa dhanka mas'alada ta'siilkeeda sharciga wey laakiin maxaad igula talinaysaa hadday noqoto taladan ku siinayo waxay tahay haweeney intaasoo dhan martay oo kaa cararto yurub ka dhacday tu kuu dhaanta allah kuugu bedelo masalada labaad weeye haddayba ku leedahay nin baan guursanaya oo aan iska kaa fasaqaya intay iyadoo xaasku oo gogoshaadii ah ay nin kale la seexan lahayd waxay kula seexataba waxaan kugula talin lahaa iska siidaa iyadana ha dambaajinin oo dembi weyn ha gelinin adigana wax kuu dhaama waad heli sidaas daraaddeed waxaan kugula talin lahaa faraha ka qaad marba hadday leedahay nin kale aan guursanaya waxay ku guursan la garan maaye faraha ka qaad iska fasax ha guursato waxay guursanaysaa adiguna tu kala raadso wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 57 sheekh khayr allah kugu abaalmariyo wadaad tabliiq ah ayaa waxaan ka maqlay hadalladan qofkii salaada subax ka taga wejigiisa waxaa laga qaadaa nuurka qofkii salaada duhur ka tagana irsiqa ayaa lagu ciriiriyaa qofkii salaada casr ka tagana jirkiisa ayaa baaliyooba macnaa duugooba qofkii tan maqrib ka tagana cilmigiisa looma barakeeyo qofkii tan cishaha ka tagana hurdada ayaa laga qaadaa arrinkaas maxaa ka jira wax xadiis ah ma ku soo arooray waa sheekadii tabliiqa way waxaas xadiisaan jirin oo sal iyo raad lahayn in nebiga laga sheego waa qasaasiinta iyo dadka qisaska iska jecel waxyaalahay sheegaan xadiidkaasi meeluu ku yaalla ma arkin kutubta xadiidka in badan baan ka baadhay meelaha madaanta laga heli karo laakiin ma arkin wax sheegay saas daraaddeed waxay u badan tahay wixii badnaa ay wadaadadaasi daldali jireen inuu ka mid yahay baan u badinaya wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha 58aad sheekh diinta islaamku maxay ka qabtaa tahriibka qofka naftiisa ku haligsamaysa ma soo gelayaa qof naftiisa dilay allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila atahluka naftiina ha ku ridina halaka ha ku ridina naftiina ayaddaasi say ku timid waxay ahayd
sida saxaabadu tilmaamayaan halakadu dhowr nooc bay ku timaadaa jihaadkii sharciga ahaa in laga fadhiisto in wax lagu bixiyana la diido waa halaag mufasiriinta salafku waxay ku tilmaamayaan halaaga waxaa ka mid ah aayadda soo galaya in ruuxu intuu dambaabo yidhaahdo la ii dambi dhaafi maayo quusto waa halaaga nooc ka mid waxaa ka mida bay leeyihiin ruuxu inuu safar galayo sahaydii loo baahnaana uusan qaadan kadibna naftiisa khatar geliyo walaa tulquu biaydiikum ila tahluka macaani fara badan oo mufasiriinta salafku ku fasireen ayaa wuxuu markuu soo arooriyay alimaam ibnu jariir at-tabari imaam al-mufassiriin wuxuu leeyahay aayaddu macaanidaas oo dhan way soo wada galaysaa marka ruuxa naftiisa khatar geliyey oo meel halisa geliyey ma bannaan waana dembi aad u weyn sidaas daraaddeed baa xataa mujaahidka ilaahay dartii u dagaalamayay dagaal sharciyana ku jira gaalana la dagaalamaya inuu naftiisa meelaha khatarta ayna ka soo noqonaynin ku tuuro bay culimmadu dawaabid u dhigeen meeluu isleeyahay ka soo noqon maysa ama u badinayo oo waxay yidhaahdeen ama waa inuu cadowga xanuujinayo ama waa inuu muslimiinta dhiiri gelinayo geesinimo gelinayo ama waa inuu shahaado raadis yahay oo maslaxa ka ratimayso laakiin uun istuur un adugu naftaada khatar geli hadda dad gaalo la dagaalamayso aan faa'iida ka imaanaynin maya bay dheh ma bannaana marka nafta in la halis geliyo meelaha khatar ah muxuu ahaay ku dhimanayso la geliyo ma bannaana asal ahaan aayadda itlaaqeeda laga qaadan xadiista nebiguna sal alla alay wasalam way faa'iidaynaysaa oo waxaa ka mid ah xadiidka cali ibnu shaybaan abu daawuud iyo bukhaari fi ladab almufrad ayuu ku yimid nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam man baata calaa dahri beytin laysa calayhi xijaab faqad bari'at minhu dimma ruuxii barya guri korkii sadxiga koree guriga ruuxii barya isaga oo wax celiya aan lahayn yacni derbi iyo wax celiya oo dhicitaanka ka celiya inuu meesha ka dhaco wax ka celiya isagoo uusan lahayn guri korkii oo uu ka dhici karo ruuxii baryaay yacni cahdigii iyo ballankii waa ka beri noqday isla xadiidka riwaayaadkiisa waxaa ka mid ah axmed iyo bukhaari fi ladab almufrad can rajuli min asxaabi الnabiy sal lla alay wasalam wuxuu leeyahay man baata fawqa beytin laysa xawlahu shayءun yaruddu fawaqaca famaata faqad bari'at minhu dimma ruuxii halkaa ka soo dhaco saa ku dhintay cahdigii iyo ballankii beri buu ka yahay wuxuu leeyahay waman rakiba albaxra bacda maa yartaj famaata faqad bari'at minhu dimma ruuxii badda fuula markay baddu kacsanta oo halkaa ku dhintana ammaankii iyo cahdigii beri buu ka yahay xadiidkaasi sheekh albani caleyh raxmat ullah wuu saxiixinayaa silsilada iyo saxiixuljaamic sagiirkaba wuu ku saxiixinaya inkastoo sheekh shucayb uu tilmaamayo inuu daciif yahay riwaayadkiisa isu geykeenaya waxaa loo deliishanaya xadiidkaasi ruuxa guriga korkiisa bariyey ka soo dhici kara naftiisuu khatar gelinaya ruuxa baddoo kacsan fuulaya naftiisuu khatar gelinaya waa loo diiday marka waxaa la mida sabab kasta ama xaalad kasta oo ruuxu naftiisu ku halisgelin karayo lama ogola saas daraaddeed waa xaaraan mana bannaana kamana foga sidii ruux isdilahayoo kale oo axaadiista ku soo aroortay ruuxa naftiisa dilay qaar ka mida waxay tilmaamayaan nin dagaal ku jiray oo jihaad ku jira oo dagaalamayay oo dhaawacmay oo xanuunkii intuu u adkaysan waaye isdilay xanuunkii nabarku u dulqaadan waaye mid kale nabar baa gaadhay nabarkiibuu intuu waxgeliyey buu qolofta kaga qaadoo qojoqojeeyey kadibna nabarkiibaa caabuqay oo markaasuu u dhintay naftiisuu dilay ya marka waxyaale intaa ka yar tanba ka fududba bay shareecadu ka soo qaaday ruuxu inuu naftiisa dilay wabitaali ruuxa naftiisa dilayna haddee waciid adag baa ku soo arooray tahriibku intaa wuxuu la dheeryahay nafta khatargelinteeda waxaa garab yaalla cirdigii iyo sharafkii oo iyadana la khatar gelinayo
oo dumarka jidka marayahay boqolkiiba 90 waxay ku talagalayaan ayna u badan tahay in la kufsan bal waxa la ii sheegayba waana jirtaa marka ay tagayaan bay gabdhuhu xataa isbikaara jabiyaan waxay ku talagashay in la fuuli doono oo si diyaar garowba waaba loo si diyaar garoobay marka cirdigii iyo sharafkii baa loo baabi'inaya maxaa loo socdaa xagga marka la tago been baa la akhrin doona kaba daranba ya marka xagga la tago meeshii loo socday la tago ninkin ilaahay nabadgeeyaba oo fakadaba ya hadhow muxuu akhrin doonaa been buu akhrinaa been buu meeshii ku degi iyo khiyaano hadhow intaasoo dhan marka laga gudbo maxaa loo socdaa marka waxaa loo socdaa hilib weydaho buur korkeeda saaran aan la fuuli karin islaamihii 10 ahaa xadiidka bukhaari ku yiri mid walba ka sheekeynaysa ninkeeda mid baa cajab badnayd oo waxay tiri ninkaygu wuxuu la mid yahay hilib weyd ah oo buur korkeeda saaran buurtana fuulideedu ma sahlana bay tiri yani wax weeyaan markaad fuusho oo dhibaatooto oo kadeedanto oo rafaado oo meeshaad u socotay tagto mise waxa ka horeeyay waaba hilil weydaho aan fuud iyo maraq iyo nacfi midna lahayn intaasoo kadeeda marka la maro meesha la tagay nafciga yaala markaad aragtana waa dullinimo afaadka iyo gaalnimada taalle zaa'idka ana iska badaa waxaasoo dhan marka la isu geeyo tahriibku waa xaraan fi shariicati muhammad sallallahu alayhi wasallam ma banaana ninkii ku dhintana asagoo caasi ah oo ilaahay caasiyay buu dhintay safarkiisuna waa safaru isyaan waa safaru taama safar mubaaxana ma wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال شقنتني سقالات ولا لها إحسان ميديا خير الله يدين سيو سيدا وناكسن أدقوا أديكتان دعوة ما أنت وحن ربينا شيخ ويديو سؤالها سو صعدا شيخ وآبهي وحكد انتي قري يحوغاها انتئة والعقة مركي ودنتي وحالة شوقي ويلكي وغيرا ولا لهن سقانا آسي آبه وحونا كل دردار من العقة إيا وراقها قري قبا وكوريتيو متكمدا ولا لهن وآبه وآدقوا كالصونا wuxuu aabe wiilkii kula dardaarmay inuu wax ka cuni karo kaliya lacagtaas hadii ay baahay u qabato hadaba sheekhu wiilkii lacagtii dhaxalka ahayd wuu wada qaatay isagoon wiilkii lagala dardaarmay uusan ku wareejin markii la weydiiyayna wuxuu ku jawaabay waan u baahanahay hadaba sheekhu lacagtaasi dhaxalka oo 8 qof oo walaala ah ka wada dhaxayso oo wiilka qaatay maxay diinta iyo shariicada ka qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa deyn wiilka lagu leeyahay xoolaha uu qaatay waa deyn waa inuu gudo xoolaha la dhaxlo waay ama haddii uu qiil ka dhiganayo duqa yiri haddaad u baahato iyo waxaad uga baahato warkaa laftiisaan saxsanaynba laana nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith ilaahay cidii xaq lahayd xaqeeda waa siiyay halka xoolaha waa la qaybiyay nin walbana xaqiisa ilaahay baa u qoondeeyay mar haday sidaas tahay cid dhaxalka wax ku leh dardaaran male buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxba looma dardaarmo dardaaranka uu meydku intuu ruuxu dhimanin uu dardaarmi karo oo xoolihiisa 3 meelood meel ah wuxuu u dardaarmi karaa dad aan dhaxalka wax ku lahayn oo kaliya laakiin dadka dhaxalka wax ku leh dardaaranka ma galaan hadduu dardaaranka geliyana waa baatil ilaa inay dadka dhaxalka ku leh ogolaadaan oo iyagu idmaan mooyee saas daraaddeed duqa warkiisii ahaa haddii aad wax uga baahato wax jira maaha xoolahan waxay ahayd inuu xifdiyo ciddii lagala dardaarmay ku soo wareejiyo kadibna shareecadu dhaxal siiso loo qaybiyo hadduu cunayna xaq darru ku cunay waana lagu leeyahay waa in laga helo kadibna la qaybsado waa wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال اللحظنات سلام كبعد مقعيق وأبشر وحان ربائنا ويديو الشيخ سؤاشا وحانا هي قف باراليس وقارك الدنبه عن شقينين على شنقارك الدنبه أي درينك كمقن وحان ربا سيانو ويساقاتو صلاة دميان قبقبيستا تنكالي بيها إنان كو ويساقاتو ما أودو مرارك قاركود أو سرير أيان شفا جزاكم الله خيرا
الله تبارك وتعالى قرآن كريم كوحو كويل فاتقوا الله ما استطعتم كبقى اللي انت كرانكينا واجباتك الشريعة waxay ku xidhan tahay karaanka intaad awooddaada ku xidhanto wixii awooddaada ka baxsan waa laga kor yeelay ama wax kale lagugu bedeli ama isagoo dhanba waa laga tuuri nabigeenuna waa ka yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu mastata'tum haddaan amar idin amro intaad ka kari kartaan kala imaada macnaa waxaydan kari karin markaa idinma saaran shareecadeenu taysiir bay iyo fududayn bay ku salaysan tahay ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj shareeca haraj iyo cidhiidhi maaha usuusheeda waaweyn baa waxaa ka mid ah al-mashaqqatu tajlibu at-taysir marba haddii ruuxu cidhiidhi iyo mashaqo galo fudayd bay u soo jiidi way u fududayni lagu adkayn maayo sidaas daraadeed ninka walaalkeena waxaan leenahay si alla sidii kuugu fududaata u dahaaro qaado inta karaankaaga ah dadaal haddaad weysiisan karto ama cid kuu weysiisa aad helayso weyse qaado haddaad weysiisan kari weydo cid kuu weysiisana aad weydo gebagabayso boodhayso sidaana ku tuko intaasaad kari kartaa walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha lixdan iyo koobaad assalaamu calaykum waxaan ahay gabadh ama qof dumar ah waxaan joogaa gobol ninkaygana waxa uu joogaa gobol kale wuxuu igu yidhi soo bax oo imow anigana waxaan ku yidhi ma soo bixi karo maxram la'aan isagana waa diiday inuu ii yimaado arrinkaa dartii ma u dalban karaa furiin maya intaan furiin la dalbanin wax la xalliyo xal kale ha la raadiyo furiinku waa mar xal kale la waayey oo wax kale suuroobi waayeen aakhiru dawaa alkayi waa marka daawooyinka kale oo dhan la soo maro baa la isgubaa ayaa daawada ugu dambaysa waa sidaas daraaddeed asal ahaan haweentu maxram la'aan inay safarto waa xaaraan oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis dhowra oo saxaabo dhowra ka sugan laa tusaafiru almar'atu ilaa maca dii maxram inuu la socdo mooye haweenaydu yaynan safrin ama ma safarto markuu hadalkaa nebigu yidhi sal lla alay wasalam ayaa nin meesha joogaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo ina imra'atii kharajat xaajatan wa innii kutubtu fii ghaswati kada wa kada haweenaydaydii xaj bay u baxday aniguna waxaan ku qornahay duulaan hebel baa laygu qoray ciidan baxaya oo duulaana maxaan sameeyaa adiguna waxaad leedahay maxram la'aan haweentu iyana safrin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam intaliq faxuja maca imra'atika kactag duulaanka ka soo hadh xaaskaaga raac la soo xaji buu nebigu uhi sal alla alay wasalam marka safaradan maxram la'aantee layska fududaystay sax maa sidaas daraaddeed ninku waa inuu xaaska u yimaado waa inuu gabadha u yimaado kaxeeyo waa inuusan ogolaanin reerkiisu maxram la'aan inay safarto ama isaguba uusan ka shaqaynin arrintaasi waa arrin khalad ah laakiin marka qaarkood baa waxaa suuroobi karta inay duruuftu adkaato ama isagii imaan waayo ama xagga dokumentigii maalan ama xagga duruuftii nolosha iyo yani safarkii nooligii inuu saamixi waayo hadday xaalado noocaas oo kale ay yimaadaan markaasi waxa weeyaan waa in beddelkii gurigu burburi lahaa marka waxaa la odhanayaa sida culimmada qaarkood ay qabaan dad wanaagsan oo rufaqo aamin ah marka gabadha ha la raaciyo haddii maxram loo waayo waa haddii ay duruuftu adkaato beddelkii gurigu dumi lahaa xaajaa timid waxyaalahan oo kaleetana xaajaadka waxyaalaha loo banneeyay ka mid tahay wixii taxriimkoodu taxriimulwasaa'il yahay xaaja hadday timaado waa bannaanaataa aan xataa daruuro gaadhsiisnayn wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena lixdan labaad assalaamu calaykum sheekh allaha ku xifdiye waxaan ahay qof aan cibaado badnayn laakiin waxaan aad u jeclahay culimmada waxaan ka difaaca kuwa culimmada wax ka sheega ajar ma ka helayaa aakhirana ma ku badbaadaya jacaylka aan culimmada u hayo anigoo cibaado yar jawaabtu waa haa nabigeenna sal lla alay wasalam xadiidka abu muusa alashcari
ayaa nabiga la weydiiyey sal alla lay wasalam alrajulu yuxibu alqawma walama yalxaq bihim rasuulka ilaahay oo nin baa dad jecel mana gaadhi karo cibaadadoodii iyo camalkoodii iyo taacadooda ma gaadhi karo laakiin wuu jecel yahay ka warran baa leeyahy nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam almar'u maca man axab ruuxu wuxuu la meel yahay maalinta qiyaamada dadka uu jecel yahay xadiidkaasi waxaa soo saaray bukhaari xadiidka anas ibnu malik baa isagana jira nin acraabi ah baa nebiga sal alla lay wasalam u yimid markaasuu yidhi yaa rasuula allah mata saaca qiyaamadu waa goorma ya goormay qiyaamadu dhacaysa ma berri ma saa dambe ma sanad kadib nebigu ma yaqaano salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma waqtigay qiyaamadu dhacayso nebigu ka jawaabi karaa kama jawaabi karo walaa jibriil baan ka jawaabi karin nebigu su-aashiisii su-aal buu kaga jawaabay wuxuu ku yidhi maa acdadta laha oo maxaad u diyaarsatay ya ilan waa waqtigaa lama dhihi karee maxaad u diyaarsatoo kuu diyaarsan baa lagu yidhi markaasaa wuxuu yidhi maa acdadtu laha min kaiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqa walaakinii uxibu allaha warasuulah rasuul ilaahayow uma diyaarsanin salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan uma diyaarsanin wax qumanoo ii diyaara ma jiro laakiin ilaahay rasuulkiisaan jeclahay buu yidhi intaasaan hayaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam anta maca man axbabta dadka aad jeceshahay baad la meel tahay buu nebigu sal alla alay wasalam marka dadka saalixiinta iyo khayrka iyo ducaadda iyo culimmada iyo ahlu sunnaha iyo tawxiidka iyo dadkaa haddaad jeceshahay camalkaagu haba ka gaabiye iyagaad la meel tahay ninkii munaafiqiinta jecelna iyagu la meel yahay ninkii gaalada jecelna iyagu la meel yahay soo ma ya nin walba shimbirba shimbirkiisa raac waa nin walba meeshiisuu maraya sidaas daraaddeed haddaad intaa ka badiso dadka ahlalxaqa iyo culimmada iyo ducaadda aad difaacdana way ka sii siyaadsanta wallahu aclam xadiiskaa dambe bukhaari muslim waa soo saaray sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waa su-aasheenii 63aad assalaamu calaykum sheekh jinaasada meydka ma qasab baa in dadka loo sheego ruuxa lagu tukanayo waxa uu yahay rag ama dumar in dadka la yidhaahdo janaasadu waa rag ama waa dumar waa sunnatu lxaramayn oo hadda labada xaram madiine iyo maka ayaa laga isticmaalaa waxaan u malaynayaa xaajaa keentay oo meydka marka lagu tukanayo loo ducaynayo marar badan baa waxaad u baahanaysaa meydka cidda lagu tukanayo waa noocee mar carruur baa ku jirta carruurta markaa lagu tukanayo duco khaasay leeyihin oo waalidkood baa loo duceeya saas daraaddeed ruuxa ku tukanaya inuu og yahay inay carruur yihiin si uu ducadoodii ula yimaado marmarka qaarkood meydadkii waa badan yihiin in laysu sheego meydadku waa badan yihiin si ducada loo jamciyo allahuma kfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum si ducada jamaaciga loogu duceeyo duruuftaa markaasoo kale keenaysa laakiin waa rag iyo waa dumar wax baahi badanoo loo qabaayo iima muuqdo sababtu waxa weeyaan meydku hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba waxaa loogu ducayn karaa meyd ahaan oo damaa'irta sidii meyd oo kalea loo celin karaa allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu meyd ahaan baa loogu celin karaa iyadoon lab iyo dhadig midna la fiirin almuhim marka la soo ururiyo waxa weeyaan wixii xaaja ama muqtadaa uu keeno sharciya sabab sharciya ay keento oo meydka ama ducadiisa ku saabsan ama axkaamtiisa ku saabsan dadka ku tukanayana saamayn ku leh markaasoo kaleeto waa loo baahan yahay mashruuc bay noqonaysaa haddii aynan jirinna hadda markaasi wax keenaya oo xaaje iyo muqtadi ana lama hayo wakhtigii nebigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma jirin iclaanka noocaasoo kalea markaasoo kaleeto waa in la iska daayo way marka tafsiilkaas ayaa ku jira wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 64aad waxaan galmood sameeyey wakhti ramadaan wakhtigaas
mararna reer baan lahaa marar badanna reer ma lahayn farabadni awgeed ma xusuusan karo inta jeer ay ahayd su-aasheedu waxay tahay hadda waxaan rabaa inaan toobad keeno imise kafaaro gud ayaa layga rabaa aftuuna ma'juuriina jazaakum allahu khayra aljazaa waxaa laga rabaa horta towbadda dembigu intuu dooni ha la ekaado ruuxa hadduu si dhaba u toobad keeno ilaahay dunuubta waa dhaafaa in allaha yakfiru dunuuba jamiican markii laga soo laabto wuxuusan dhaafin ma jiro allah tabaaraka wa tacaala waxaa lagaga baahan yahay towbad dhab ah oo shuruudeedii wadata inaad la timaaddo waxaa kaloo lagaga baahan yahay oo labaad maalmihii aad jabisay in aad dib u qallayso intii aad xusuusato waxaa kaloo lagaga baahan yahay inta goor eed xusuusato inaad soon ku jabisay galmo inta goor eed xusuusato kafaaradeediina waa lagaa rabaa mid walba 2 bilood oo isku xiga haddaad kari weydana bedelkeedii ayaad markaa qaadanaysaa macnaha waxaa u horraysa qoor xoraynteed waxaa ku xigta 2 bilood oo soonkooda isku xiga waxaa ku xigta 60 miskiin quudintood marka intaad dib u fikirto maskaxdaada ka shaqaysiiso inaad xusuusan karto isku daydo intaad xusuusato kafaaradeedii waa lagaa rabaa intii aad soon jabisay maalmahaad jabisayna qallahoodii waa lagaa rabaa towbadna waa lagaa rabaa intaa waxaa ka soo hadho iyadana lagaaga baahan yahay wixii hadda ka dambeeya inaad hagaagto oo aad weliba badsato soonka sunnaha ah si berri haddaad ilaahay hor tagto xisaabta soonka waajibka ah hadday wax ka qasmaan ka khaldamaan ama wax iska dhimaan casaa walacalla inuu ilaahay soonka sunnaha kugu buuxiyaa dhici karta marka soonka sunnahana badso fitankana ka fogow mar labaad si aadan meeshii ugu loobanin yacni waxa weeyaan seeraha iyo beerta agagaarkeeda ka durug wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheena 65aad assalaamu calaykum sheekh xirfadda saxaafadda ma ku shaqaysan karaa diintase maxay ka qabtaa saxaafadda middeeda muxuu ahaay la akhriyo iyo midda mushaahadkee la daawado iyo midda la dhagaysto dhammaanteed waa wasiilo waa shay wax loo isticmaalo waxaad u isticmaalayso xukunkeedu noqonaya sidaas daraaddeed baa culimmadu waxay yidhaahdeen yajri calayha alaxkaamu alkhams aw yajri fiiha alaxkaamu alkhams shanta axkaamta ee diinta baa ku dureerayso mar waajib inay noqotaa laga yaaba marna waxaa laga yaabaa inay mustaxab iyo sunno noqoto mar waxaa laga yaabaa inay mubaax iska bannaan noqoto mar waxaa laga yaabaa makruuh laga fiican yahay inuu noqo marna xaaraan bay noqotaa maxay saa u kala noqonaysaa calashaani iclaamkan aad isticmaalayso iyo saxaafada qaabkaad u gudanayso iyo waxaad u isticmaalaysaa baa xukunku qaadanaya mar jihaad bayba noqotaaba oo markaad xaq ku garab istaagayso ama qoraalkaaga ama hadalkaaga ama warkaaga xaq markaad ku garab istaagayso ama dulmi kaga hortegayso ama shubuhaad khaldan ku burinayso markaasi waxa weeyaan waman jaahada bilisaanihi fahuwa mu'min waa jihaadka carabka way markaas jihaadka qalinka jihaadka carabka waa nooc jihaadka ka mid markaad dacwo ku gudanayso khayr ku garab istaagay khayr ku faafinayso wahaakada marna saxaafadu waxay noqotaa iska mustaxab oo waa markuu ruuxu kasab ku raadsanayo risiq biil buu ka raadsanaya mabda'ba ma xambaarsanaba ninkani fikirna ma faafiyo wax qaldanna kuma faafiyo wax saxsanna kuma faafiyo laakiin waxyaalaha iska mubaaxaad u faafiya xoogaa biilkiisana meesha waa ka raadsadaa way iska bannaanta laakiin bisharti waa inuusan wax shareecada khilaafsan uusan samayn maxaan ka wadnaa haddii uu waxyaala khaldan maalan xaqaa'iqda hadduu ka been sheegoo kale ama ma ahee uu fitno ka shaqeeyo warkiisu uu fitno iyo balaayo kicinayo ama ma ahee wax shareecada ku khaldan buuba tabinaya ama ma ahee daalim gardaran buu ku garab istaagahayaa warka oo iyo saxaafada oo kii laga gardarnaabuu ka hiilinaya
ama ma waxa dhici karta midaan ammaan mudnayn oo ardaal abu iska amaanaya saxaabada Soomaaliya meeshay ka gasho waday la gasho sax ma ku khabiiso aad u liita buu amaanta ka badinaya maantana iska amaanaya علشان waxoogaa baa ka galay marka saxaafadu waxay ku xidhantahay qaabka aad u isticmaasho marna waxay noqotaa amal sare oo ummad iyo diin iyo akhlaaq u adeegayo wanaag marna waxay noqotaa shay khabiis oo liita oo saaxibkeeda naar iyo cadaab geeya dambi weyn ka soo gaaro ayay noqotaa marna mubaax iska banaan bay noqotaa mar mustahab bay noqotaa kolba sidaa u isticmaasho laakiin mid baraarujinta mudan baa waxay tahay saxafiga muslimka ah waa inuu yahay nin risaalo xambaarsan saxafi iska qaawan oo mabda' la'aan ah oo caqiido la'aan ah oo iska iimaan la'aan ah oo meeshay la martaba mara kaasi wax qiimo ma leh saxaafaduna sideeda waxay u shaqeysaa afkaar iyo barnaamij bay u shaqeysaa wax iska shaqeynaya ma jiro xataa gaaladan aad arkaysaan ee muxuu ahaay waa xor oo waa madax banaanahay oo nazaahada ka hadlaya afkaar waxa loo shaqeynayaa mabaadii baa loo shaqeynaya adiga marka hal la rooraan run mooday kii muslimka miskiinka hal la rooraan run mooday ma waa inaad aqeedadaada iyo mabda'aaga iyo akhlaaqdaada ilaaliso talabaad wax la yiraahdo xasaana uu leeyahay ma jiro ninka la yiraahdo saxafigu waa muslimka caadiga oo kale saxafigu dambiga uu galayo waa ruux muslim oo dambi galay khaladka uu galayo waa ruux muslim oo khalad galay oo kale ma jirto wax la yiraahdo waa saxafiyo isagu waa ilaashan yahayo xasaan uu leeyahay waa looma dhawaado lama taabto warkaasi war jira marka saxaafadu waa min dilaba afle waa qaabkii loo isticmaalo hadaad shar ku goosatana way ku goyn hadaad khayr ku goosatana way ku goynaysaa xukunkeeduna halkaas u maray wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤال لحدنا اللحاد السلام عليكم صلاة الضحى لو يقان قرمي بلابتها صلاة الضحى لو يقانه waxay bilaabataa marka ay qorraxdu soo baxdo wax yarna ay kor soo yarkacdo oo xadiidkii Amr ibn Absa ama Abas ayaa wuxuu ku yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtiyada markuu ka hadlayay salaadaha aan la ogolayn in la tukado salaada subax marka tukato salaado dhan iska daa ilaa qorraxdu soo baxdo maxaa ku xiga markay soo baxdana wuxuu nabiga ku xujiyay sallallahu alayhi wasallam fa idar tafa'ad qid rumhin fasalli markay dhalato korna u soo yara kacdo oo waran qiyaastii kor u soo kacdo marka waran qiyaastii wuxuu leeyahay culimadu waxay leeyihiin isha laga wadaa markaad fiiriso oo qiyaasta malaha wallahi qiyaas hal waran qadarkii way soo kacday sheekh ibn Uthaymeen wuxuu leeyahay waa hal mitir oo kale waa yey kor u soo yara kacday markaad isdhaahdo markaas aad tukan kartaa culimada sunnada sida sheekh ibn Baaz sheekh ibn Uthaymeen iyo culimada sunnadu waxay leeyihiin qiyaastaasi waxa lagu qiyaasaa shuruuqa markay qorraxdu soo baxdo 10 daqiiqo kadib إلى 20 دقيقة 20 دقيقة 10 دقيقة أوير وأنا قرحنا الشروق إذا صوبحيد إذا سكته إلى 10 دقيقة 10 دقيقة وحي كدم بيا قالوا حي لما 20 إلى 20 لجارسيا فعلا هل كوحي كدم بيا أيا واحد شوقة وقتي صلاة الضحى إلى لقى جاريو زوالك قرحنا إلى برتمها أي كتجيسو أنت ولا تبكره حل جاي أقف ضد بدن تهينا وحين ترمض الفصال ومركي qorraxdu dhulka kululayso oo ay ilaaga gubiyoodo oo muxuu ahay nirgaha iyo qurbaxyada yaryarkiiya markay ay yaani lugta markay dhulka saaraan ay ku caga gubiyoonayaan xilliga qorraxdu kululaato ayaa ugu fadli badan in la tukado wallahu a'lam جزاك الله خيرا سائلك سؤال لحدين تدبات سائلكني wuxuu leeyahay السلام عليكم magacaygu waa Abshir Ahmed oo ku nool wadamada galbeedka waxaan ay wiil dhalinyaro ah waan idin salaamay idinka iyo sheekha salaan kadib sheekha waxaan weydiinay su'aashan waan jim gareeyaa jimka waa jirdhiska waa jim gareeyaa jimkana music ayaa ka daaran aniga se telefoonkayga ayaa quraan ka daarta oo aan ka dhageystaa anigoo diidan inaan heesahaasi dhageysto oo meesha ka daaran aniga se awood uma leeyahay inaan heesahaasi damiyo marka sheekha inaan weydiiyo ayaan rabaa ma dambiba ayaa iga soo gaaraya
quraanka aan meeshaasi ku dhageysanayo anigoo jim gareynaya teeda kale ma dhageysan karaa quraanka anigoo jim gareynaya barakallahu fiik quraanka waxa kala gedisan muusiga inaadan dhageysan iyo meeshuu ka daaran yahay inaad tagto meeshuu ka daaran yahay inaad tagto joogtaaba khalad Allah quraan kariimka wuxuu ku yiri markuu cibaadu raxmaan sifaynay walladina la yashhaduna az-zur ya baadilka iyo zuurka iyo xumaanta meesha lagu hayo ma tagaan aayadii kalena waa kii rabbi tabaaraka wa taala وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ما شفريسي قدي تشوقي دي ذا وقلد سيداس دراديد هذا جيم قرينيسو أما تشيرك لسانيسو ميلك للراس هذا القرآن دقاها قشت وهذا السقي اسكحدو موزيقي يوحي دارنا أيضا إشكال كيلادها وحي تهميش تشوقي دي ذا وخلط مسألة لبعضنا ويشتاي القرآن كأدجها كشتاي هذا جيم كعيارة بقرآن بمعنيه سروح حيسود قلبك أقوسه كذا يا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قلبك أقو لو قلبي مليء قلبك أقو روحكم مشغول سيء هاي هاوشنات كتير تصومه هذا قلبك أقو مشغول سيء قلبك لو القرآن كقوله يستمه يصير marka quraanki waa iska daaray dhagahana waa iska ka jira waadna iska boodboodaysa ya sax ma quraanka maxaa la yiri wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu dhageysta leey dhageysta kaliya ma u dhag raariciya sooma Allah tabaaraka wa ta'ala qolo wuxuu ku eedeeyay quraanka waxay dhageysanayaan ayagoo qalbigoodu ka mashquulsan yahay sooma ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قرآنك واحد دقيسينا يقول عياري ما حكدن بيه لاهية قلوبهم قلوب تظن أي مشغول سنت marka lama rabo quraanka hadaba daarayso daqeysanayso waa inaad u soo jeedo u diyaarsanta laakiin ciyaaro kale aan ku jiraayo dhagan buu isee ka jiray waa iska daarnaanaya maya wabil munaasaba waxa la mid ah quraanka laga daarayo suuqyada inkastoo waayahan dambe ay yaraatay haddana suuqyadan quraanka laga daarayo sax ma laana wax weeyaa u diyaarsan oo dhageysanay laqwi iyo buuq iyo qaylo iyo qajajac iyo kuwa kale waxa lagu garab daarayaa sawaaxili qayli haye iyo Soomaali qayli haye xayeysiin iyo qajajac ar quraanka ka daaya sida Allahu a'lam su-aasha 68aad su'aalahan inoogu dambeeyo insha Allah ta'ala barnaamijkeena maanta waxay naga soo gaareen conference call-ka waa barnaamij dacwada lagu faafiyo oo ay isticmaalaan muslimiinta ku nool waqooyiga America loo yaqaano qolalkan yaani muxuu ahaay conference-ka 1-on-4 saailkan wuxuu leeyahay sheekhow waxaa jirta maamo aan ehelnahay waa maamo waayeel ah waxayna ka diiwaan gashan tahay laba wadan waxayna kala qaadataa mid walba lacag ee sheekhow lacagahaasi xalaal ba haday ku ogaadaan ma ku siinayaan wadamadaas haday labaduba ku og yihiin oo xaggan inaad ka qorantahay xagganna ka qorantahay labadubana saa kugu siiyaan ahlan sahlan laakiin warkaasi war jira ma ya ruux meel ka qoran meel kalena ka qoran laba meelood lama siiyo waxba la kala qarinaya waa kala dhuumanaya xagaana hawl baa lagu jooga xagana hawl kale lagu jooga sidaas daraadeed labada dawladood baa la khiyaamaya ya tan ruux kale la isaga dhigaya tan ruux kale la isaga dhigaya waa la kala qarinaya markaas oo kale waa khiyaano iyo been wax ku yimid mana banaana sida wixii lagu qaato ama magac ruux lagu qaato ama magac shakhsi sawga ku qaato beenta iyo khiyaanada iyo laqdabada wixii ku yimaado shariicadeenu ma ogol laana gaalna been iyo khiyaano looma sheego muslimna looma sheego inna allaha la yuhibbu al-kha'inin wa khiyaano wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aasha 69aad assalaamu alaykum sheekhow ninka maalin walba diinta caaya islaamka ma ka baxay hadii uu naaqabana naagtiisa sida ma uga furmaysaa
maalin kasta inuu caayo iska daayay hal mar hadduu caayay diinta waa ka baxay hal mar hadduu diinta caayay ama allah caayay ama rasuulka caayay ama malaa'igta caayay diinta waa ka baxay hadduuba fahansan yahay wuxuu ku hadlayo qur-aanka kariimkaana ilahay masaladaa ku tilmaamay walain sa'altahum layaquulunna inama kuna nakhuudu wanalcab qul abillaahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ورما الله يا آياته سي رسول كيسات كوتشيسيسان أحبها عذر دارنين أواد قالوا ذين بالليل إيمان كذب مؤمنين مركض هيدين كذب دين تواد كبحدين ما عاد قالوا ذين إلهي يود كوتشيسيسان رسول كيسات كوتشيسيسان آيات كيود كوتشيسيسان ودينتي ruux hadduu diinta cayo diinta waa ka baxaya waana mas'alo culimada islaamku ay isku waafaqsan yihiin laba isla diidana ma jirto ijmaac weey sababtu wax weeyaan ayadoo ficil ahaan gaalnimo ah ba haddana waxay tilmaamaysaa ruux markuu diinta caayayo nacay baa la socda alla markuu caayayo nacay baa la socda ixtiraamkii iyo qadarintii ay mudnaayeen buusan u haynin intaasaana gaalnimo ku filan qur-aanka kariimka alla wuxuu yidhi والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم حلو عليه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وحي إلهي سود تشيبي كحدين مركز إلهي عمل كودي بابيه هو بيه وقالوا مركا أرين لغو كفتما معه أرين لغو عيارنا معه وقال لي ما بنان كتالوه هدو روحو كدعنا markaaba diintu ka baxaya hadduu diinta ka baxana waxa loola dhaqmayaa sidii ahkaamtii murtadiinta dadka diinta ka baxay ahkaamtooda la siinay oo muxuu ahaay gabadh muslimada ma qabi karo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo salaatul janaaza lagu tukan maayo gaalada la ilxaaqinay wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aashina toddobaatanaad culimadu waxay sheegeen in islaanta uu ku dhacay dhiiga istixaadada inay salaad kasta u weysa qaadanayso su-aashu waxay tahay marmar iskaalshaha ma masixi karaa iskaalshaha masixidiisu waa mas'ala khilaafiya khufkii nusuusta ku soo aroortay la mid ma yahay mise ma ah waxaa si xoog badan in uu la mid yahay oo la masixi karo xadiid culimada qaarkood ay sugayaan sixadiisa si la isku haysto xadiid al-Mughira ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Mughira wuxuu leeyahay nabigu waa weysaystay waa masaxa ala al-jawrabayn labada jawrab nabigu waa masaxay sallallahu alayhi wasallam xadiidka waxa xoojinaya aathar badan oo saxaabada ka sugan inay jawrabka masixi jireen jawrabka noocyadiisana waxa kamida mid mara ka samaysan ama ka samaysan muxuu ahaayay ka samaysan suuf ka samaysan ama qutni ka samaysan cudbiga wuxuu u qaybsamaa mid adag iyo mid يعني jilicsan ayuu u qaybsamaa marka jawrabka isagoo la kala qaadin saxaabo badan bay ka sugan tahay inay masixi jireen waxa kamida oo uu ka sugan yahay Abu Mas'ud al-Badri wuxuu ka sugan yahay Al-Bara ibn Azib wuxuu ka sugan yahay Al-Khalifatu ar-Rashid Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wuxuu ka sugan yahay Abu Umamah al-Bahili saxaabo badan buu ka sugan yahay al-mas'u ala al-jawrab saas daradeed ba al-Imam Ibn Qudamah alayhi rahmatullah wuxuu yiri الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا صحابة جورك ومسيحي جرين وقت قودين عيد خلافتين لما هي سيدا سينا إجماعك وهيد مركز جورك والله مسيحي كرا أما هل يداد خفكي بلمدي أما هل يداد خفك الله قياس قادا والله مسيحي كرا لكن مركز الله مسيحي وين الروح حدي isagoo waysaqab kaamil waa inuu ku xidhay hadii marka haweenayda istixaadada ee dhig furanka qabta ayadoo taahira haday xidhato oo intay weysiisato tahaaro qaadato ay khufka xidhato hadhow markay u baahato bedelkay siibi lahayd ma lugaha dhaqi lahayd waa masixi karta bal ayadaaba cid kasta ka mudano waxa badan baahideeda badan laana say jumhuurtu qabaan salaad walba huwaystaa leeyahay marka iyada baahideeda ka badan dadka kale baahidiisa والله أعلم جزاك الله خيرا سؤاشا
toddobaatan iyo koobaad assalaamu calaykum shiikhow shukaansiga xad ma leeyahay hadduu leeyahay ilaa iyo meeqa bil ama sanad ayaan gabar shukaansi la wadi karaa shukaansigaasi waa kee kii oo shareecadu sheegtay hadduu yahay isaga dhanba waxaa laga yaabaa inuusan wakhti badan qaadan laakiin ka hadda jiree dhallinyaradu ma dhammaado isagu wakhti ma leh guurka shukaansiga shareecadu waxay u taqaanaa khitbada doonitaanka dumarka ayaa loo yaqaanaa doonitaanka dumarkana innaga dhaqan ahaan soomaaliya haddaan nahay qaabkaynu samayno iyo qaabkii ka jiray mujtamacii nebiga sal alla alay wasalam nusuustuna ku timid farqi baa u dhexeeya waxay ahaan jirtay dumarku gurigooday joogaan marka la rabo in la shukaansadana waxaa loo mari jiray ehelkooda laakiin annaga wiilashii iyo gabdhihii baaba bannaanka iska eriyanayaba masaladaasi waxay leedahay marka ishkaalkeeday leedahay almuhim in guur layska damco ama guur lagu sheekaysto dhibaato ma leh shareecadu way ogolaatay in lays arko haddii guur layska damacsan yahayna way ogolaatay laakiin luqadda laysku shukaansanayo lagu wada hadlayo waa inay noqoto luqad hufan aadaabta shareecada waa in la ilaaliyo sidii laba ruux oo isqaba oo kale luuqadoodii idinma dhex mari karto leanna isma qabtaan soo ma kelimaad waxaa jira loogu talagalay dadka isqaba inay isdhahaan kuwa ajaanibtaana ayna isdhihi karin falaa takhdacna bilqawli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waxaa ka mida labada ruuxee guurka sheekada guur ka dhaxaysa inaysan isla cidloonin maxaa yeele shaytaan baa saddexeeya waxaa ka mida inaysan fiiradu hal mar waayo hal mar ka bogo ku qanac haddaad ku qanci weydana bannaanka mar haddaad ku qanacdana wixii intaa ka dambeeya haddaad daawanin xaaraan bay kaa tahay masale kaleeto weeyaane sheekadan dheer ee iska daba joogga ahee abbaayi iyo aboowada ah ayadana aafadayday leedoo fitnay irid u tahay fitna albaabkeed waayo dhallinyaro fara badanna inay isku qasmaan oo akhiiran ay isfasaadiyaan inta badan taasaa wasiilo oo waayahan loo helay ee muxuu ahaaye teknolojiyaba loo helay internet iyo aafooyin loo helay iyo waxuun ilaa xaalkooda ogay marka waxaa ka mida maalan ballanqaadkan beenbeenta in layska daayo sheekh ballan baan siiyey ballan bay siisay inay guursato ballan baan siiyey inaan guursado oo ma idinkaa go-aanka iska leh markaad ballanta isa siinaysaan ya guurku yuu ka go'a ya guurku weli buu ka go'a gabadha la guursanayo go-aanka guurka keligeed ma lehee weli baa la leh markay ku leedahay sheekh muxuu ahaayey diyaar baan ahay ballan baan kaa qaaday 2 sano kadib waxbarashada markaan dhammaynaan isguursanaynaa sheekh way iga baxday maxaan sameeyaa waa ka dambaysa sooma marka waxyaalahaasoo dhan waa qaababka khaldan oo shareecada khilaafsan oon saxsanayn gabadhii haddii aad sheeko gurida dhex marto wax dawaabidii sharciga laha noqoto wakhti kooban haddii aad kala qancadaanna kala taga haddaad israbtaan ood isguursanaysaanna wax soo afjarma ha noqdo oo looga gudbo stagekii ku xigayoo reerkii in laga doono gabadhiioo laysguursado laakiin afkaan iska qabaynaa meherna ma jiro warkaasi waa war dhallinyaro mana soconay wax shareecada khilaafsan wallahu aclam jazaaka allahu khayran waa su-aashii inoogu dambaysay kulankeennan caawa su-aasha 72 wuxuu leeyahay saa'ilkani sheekh waan ku salaamay salaan kadib su-aasheedu waxay tahay waxaan ku noolahay waqooyiga Sweden salaadaha duhurka iyo casirkii way isu dhow yihiin xilliga la tukado duhurka waxaa la tukadaa 12 iyo 17 daqiiqo casirkana waxaa la tukadaa 12 iyo 23 daqiiqo waa xilliga barqada waxaa u dhaxeeya 6 daqiiqo ma isku jamcin karaa jamac ta'khiir ama taqdiim xilliga cisha ma barqinkii ma meelaha waqooyiga Yurub salaaduhu waxay isugu dhawaadaan gelinka dambe inta badan salaada subax iyo salaada duhurku way kala fog yihiin laakiin qaaliban waxa soo gala wixii duhurka ka bilowday mar habeenimay galaan marka almuhim
tawqiidka beledka aad joogto meesha aad joogto xilliyada salaaduhu soo galaan umbaad raaci waayahan waa la fududeeyey inta badanna dhulkaasi hooskii nusuustu isticmaashay lagama waa isticmaalaba laana qorax hoos lahoo korkaaga maraysaba inaad arkin bay u badantay meelahaas ay wareegi oo hoos qumanba male marka hooskii inuu isla ekaado inuu inta dheeraadeen xadiista ku timid laakiin waxoogaa waxa la soo dhaweeyay muxuu ahaayay culumta falaga iyo horumarka hadda laga gaaray baa waxay keentay waqtiga xilliga duurku soo galayo in jadwal ahaan loo ogaado saacadaha xilliyada haddii marka salaadii duhurka iyo salaadii casarku isa soo galaan oo middan markaad ka baxdo ta kale waqtigeedii soo galo way dhacdaa waa la tukan marka qaarkood waxaa dhaxaysa waxay ka baxayaan duhurkii markay duhurka saa uga baxaan 5 daqiiqo kadib casarka la aqimay maalin dhaweyd muxuu ahaayey December-teedii oo Sweden joogay salaadii jumcaha markaan tukanoon ka salaamo naqsan sunna xataa lama tukan sidaadii loo salaamo naqsaday haddana casarkii baa la aadaamayba isla meeshii baan ku tukan marka la baas meeshaada iyo waqtigeeda iyo duruufteeda iyo jadwalka waqti salaadaha saacadahooda u degan umbaad raaci insha Allah ta'ala ta kale salaadaha casarka iyo duhurka axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam jibriil uu ku tujiyay marka la fiiriyo salaada casarka iyo duhurka meel iska soo gali karaan baa jirta oo culimada qaar baa qaba waqti mushtaragaho duhurka dhamaadkiisa iyo casarka bilowgiisu meeluu iska soo gali karaa oo xadiidkii jaabir oo jibriil waa ka ku yimid maalintii hore wuxuu duhurka tujiyay markay qorraxdu zuushay maalintii dambana wuxuu tujiyay markii shay walba iyo hooskiisu isla ekaadeen casarka maalintii hore wuxuu tujiyay shay walba iyo hooskiisu marka isla ekaadeen maalintii hore xilligii uu duhurku dhamaanayay ee uu ka dhigay inuu dhamaaday ayuu casarkiina ka dhigay inuu bilowday marka meelahaas oo kale fuqaada qaar baa qabe inay isu imaan karaan waqtiyadii baa dhici karaysa duruufta khaaska deegaamadaasina gooni bay leedahay wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam hal qadiyad ban baraarujinay intaana ka bixin walaw jalsadu dheeraatay halka qodob waxa weeye waxa la ii sheegay inay jiraan niman qolo fanaaniin oo iswato wiilal iyo gabdha oo iclaamaad magaalada ka wada oo xaflad ka qabanaya meelaha maxaa la yiraahdaa bangani maxay dhahay bangani hol wax soo kala oo muxuu ahaay magaalada ku qaybinay marka waxaan dhihi lahaa dadkaas hal iska jiro iyo meeshaas yaan la tagin waxaasi waa meel ilaahay lagu caasinayo heesa iyo music iyo qashin iyo dumar qaawan iyo waa wixii shariica diiday kaaga daranay haddana lacag bay ka qaadanayaan bilaash ma marka lacagtaadii waa oo diintaadii waa oo aakhiradaadii waa oo wax walba waa oo adoo caydha soo noq diinna gubay xoolana gubay waa shaytaan waa ducaatun ala abwaabi jahannama waa ducaad iridda jahannama taagan oo dadka ugu yeedhayo kaalaya soo leexda la soo gala marka iska jira fasaadka ay wadaan ay meelo badan ka wadaani Allah hanuuniye waa fasaad iyagana gubaya ummadana gubaya daayirtana ha looga nasaxeeyo khaasatan waqtiga ay ku soo beegayaan waxay leeyihiin waa sanadkii cusbaba bilaabanaya ha looga faa'iideysanaa daayirta war sanad cusub anaga ma lihi sanad cusub gaala iskale anaga sanadka cusub goormuu noo bilowda sanadkeena cusub xataa ma garanayno imtixaankeena haysta sooma sanadkeena cusub muharram waa soo dhaaf sooma ha ahaatee markuu bilanahayo mana boodboodno mana damaashaadno shariicaduna nooma jidin kaanagii haddaan u damaashaadi weyno ma ku kala u damaashaadeen dhalinyaro hal iska jiro dadkaas waa dad ibtilaysan waa dad fidnaysan ayagana Allah soo hanuuniyo ummadana ha looga digo billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam